بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كني أفراد يفتينك القرآن ولي جزء كوبات بينو كتيرنا وحين صوت المعنى سورة الفاتحة وجزء كوبات بلوجيسة أينو كشاكينا وحين كشاكينا الناس كوبان جزء كوبات سورة البقرة أنت كجيرته أينو كورمتونا سيجود أدينو كورنو سورة البقرة waxay ku soo degtay magaalada Madiina waana suuradii ugu horeysay ama suuradii ugu horeeyay ee ku soo degay nabiga markuu magaalada Madiina uu tagay bacda al-hijra suuradii soo degay culimadu waxay yiraahdeen intii ilaa dabayaaqadii wixii ay suuradani soo degisay saas darteed waxay ka qayb qaadatay mujtamaca muslimiinta dhismihiisa ayay ka qayb qaadatay waa suurad aad u dheer suurada quraanka ugu dheer 266 aayadood ayay ka koobantay fadli fara badan way leedahay nabigu wuxuu tilmaamay yawmal qiyaamaha inuu quraanka ehelkiisa ay man doonaan oo horkacayaan suuratul baqara iyo aali imraan sidoo kale guriga lagu shiday inaanu shaydaan soo galin nabigu uu sheegay kaleey salaatu wasalaam fadli fara badan oo kale way leedahay suuradani waxay ka waramaysaa kitaabka marka koobaad muuminiinta kaafiriinta munaafiqiinta qisadii nabi aadam qisada reer bani israa'iil qisadii nabi ilaahi ibraahim iyo qisas fara badan oo kale ayay suuradani ka waramaysaa suuradani maxay xikmadda guud ay sidaa waa maxay ama fariinta guud ay sidaa maxay noqonaysaa suuratul baqara fariin bay gudbinayaan dhammaan qisaska ku jira iyo ahkaamta ku jirta iyo hawlaha faraha badan lay ka waramayso oo dhan waxay gudbinayaan fariin kaliya oo duuduuba fariintaasi waa maxay qofku inuu mas'uul ka yahay dhulka uu isagu ku nool yahay inuu mas'uul ka yahay dadka muslimiintii inay mas'uuliyadda dhabarka u ritaan ay qaataan insaankuna sidiisaba inuu mas'uul ka yahay dhulka lagu beeray inuu mas'uul ka yahay ayay tilmaamaysaa juska koobaad markaynu u soo dhaadhacno laba jus iyo xogaa bay ka kooban tahay markaynu u soo dhaadhacno juska koobaad qaybtiisa koobaad ama rubciisa ugu horeeya wuxuu ka waramayaa asnaaf الناس dadka qaybahooga waxaan soo tilmaanay suuratul faatiha inay ka warantay saddex nooc dadka kamid ah suuratul baqara bilowgeena saddexdii nooc bay ay si faahfaahinaysaa suuradu waxay ku bilaabantay alif laam mim dhalika alkitab la rayba fihi hudan lilmuttaqin waxay ku bilaabantay xuruuf kamid ah xuruufta mucjisada ay quraanka ku jirta ee micnahooga ay adag tahay dadku inay gartaan waxay ku xigsiisay dhalika alkitab kitaabkaas kitaab meel sare laga tilmaamayo sareynta kitaabka ishaaratu bil bu'd meel durugsan oo kale iyadoo la tilmaamayo ilaahay wuxuu dhalika alkitab kitaabkaasi oo kitaabka quraanka ah waa kitaab hanuun sida iyo wanaag sida marka qaybta koobaad waxay ka waramaysaa noocyada dadka aayadda koobaad ilaa aayadda shanaad ee suuratul baqara waxay ka sheekeynaysaa dadka mutaqiinta ee wanaagsan aayadda lixaad ilaa aayadda toddobaadna waxay ka sheekeynaysaa dadka gaalada ee ilaahay rumaysnayn aayadda sideedaad ilaa aayadda labaatanaadna waxay ka waramaysaa dadka munaafiqiinta marka halkaa waxay nooga soo baxaysaa qofka munaafiqa ee laba wajiilaha ee wuxuu sheegayay waxa niyadda ku haysta ay kala duwan tahay ama dadka kolba weji kula dhaqmaa inuu yahay xataa quraanku dhibta ay leeyihiin inuu aad ugu habsaamay in fara badan ka hadlay oo quraanku meel dhinacyo badan u ka istaagay ayay inoo tilmaamaysaa rubca labaad ee juskan wuxuu ka sheekeynayaa nabi ilaahi aadam in dhulka loo dhiibay oo mas'uul dhulka ka noqday way maxaynu tilmaanay suuradu yoolka iyo hadafka ay gudbinaysaa inuu yahay dhulka inuu insaanku mas'uul ka yahay muslimiintu inay mas'uul ka yihiin marka nabi ilaahi aadam baa tajrubo bilow ah tajrubo tamhiidiya ayaa dhulka loogu dhiibay ilaahay muxuu subhanahu wa ta'ala inni jaa'ilu fil ardi khalifa isagoo malaa'igta la hadlay dhulka waxaan u sameeynayaa qof mas'uul ka noqda khalifaduna waa maxay waa mas'uuliyad dhameystiran waa mas'uuliyad maamul waa mid dhaqaale waa mid siyaasadeed waa mid waxbarasho waa mid maaragtay insaan humanitarian ah oo maaragtay bini aadamtinimo ah iyo waxa kale la midka ayuu mas'uuliyadu noqonaysaa marka ilaahay subhanahu wa ta'ala
nabi ilaahi aadam markuu ka sheekeynay wuxuu ihi waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati inni jaacilun fi lardi khaliifa. malaa'igta ilahi wuxuu u sheegay inuu dhulka u dhiibayo cid khaliifa inuu u dhiibayo ayuu ilaahay subxaana watacaala sheegay. maxay u baahan tahay maamulka dhulkii lagu dhiibaya? aqoon bay u baahan tahay. waxay u baahan tahay inuu aqoon qofku leeyahay, leadership u leeyahay, kadibna aqoontaa uu markaasi ku maamulo dhulkii loo dhiibay. markaa nebi aadan ilaahay muxuu tilmaamay wacallama aadama alasmaa kullaha. ilaahay inuu nebi aadan aqoon siiyey, aqoon buu baray. aqoontaasi ayuu mas-uul ku noqon karaa qofka. haddii aanu wixii uu maamulayaba aanu garanayn qofka dee tallaabo ma qaadayo. marka muxuu ilaahay tilmaamay inuu cilmi siiyey, cibaada hay la socoto. wuxuu ilaahay sheegay subxaana watacaala dhulka oo qofka loo dhiibo inay ka dhalanayaan loolan iyo wax lid ku ah. marka inuu shaydaanno la socdo nebiyullaahi aadan, iyaga dhexdoodana ilmo nebi aadanna u loolanku ka dhacay siduu qur-aanku ka warram. marka tajrubada bilowga ah ee nebiyullaahi aadam dhulka loo dhiibay wujiskani uu ka warramaya. qisada labaad ee wujiska koobaad ka warramaya waxa weeyaan qisada reer bani israa'iil oo aayadda 4aad ka bilaabmasa. yaa bani israa'iil udkuruu nicmatii allatii ancamtu calaykum wa annii fadaltukum cala alcaalamiin. ilaahay wuxuu tilmaamay inuu nimco siiyey reer bani israa'iil, dadkana uu ka duway oo uu ka fiicneeyey maadaama uu dhiibay iyagana inay dhulka maamulaan. ilaahay subxaana watacaala waxa uu sheegay mas-uuliyaddii dhulka ee ay kasoo bixi lahayn inaanay kasoo bixin. maxaa ku dhacay marka? qalad fara badan bay galeen. waxay diideen waxyigii bay diideen. waxay door bideen arrimaha maadiga ah oo arrimihii ruuxiga ahaa bay ka tegeen. waxay door bideen muran iyo loolan ay la galaan ambiyada iyo dadkii maamulayay. waxay door bideen inaanay ilaahay adeecin. waxay door bideen inaanay ilaahay rumayn. waxay door bideen wixii la yidhi sameeya inaanay samaynin. dabeedna tijaabada labaadna ee wujuuskani ka sheekeynaya wuxuu tilmaamay inay tahay tijaabo fashilantay inay tahay ayuu tilmaamay. marka wuxuu ku xigsiiyey qisada ilaahay subxaana watacaala, qisadii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo ah qiso tijaabo iyaduna guuleysatay inay tahay. oo qisadaasi inay fashilantay buu ilaahay tilmaamay. tijaabadii labaad ee reer bani israa'iil inay fashilantay ayuu tilmaamay. tijaabada saddexaad ee ilaahay jiskan kaga warramaya nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo siduu u guuleystay. inuu ilaahay imtixaamay subxaana watacaala, imtixaankiina uu ka soo baxay. imtixaanku mu ahaynoo keliya in maaragtay la diiday in maaragtay la rumeeyo diintii uu siday, laakiin leadershipkiisii ayaa imtixaan adag galay. oo markaasi ilaahay subxaana watacaala wuxuu sheegay inuu ka soo baxay uu ilaahay imtixaamay fa atamahun, uu dhammaystiray sidii ugu quruxda badnayd, uu dhammaystiray mas-uuliyad weynna uu ka soo baxay. ilaahay subxaana watacaala dadka toosan ee dhabadiisa maraya iyo dadka aan toosnaynna inuu ilaahay kala ogyahay subxaana watacaala ayuu tilmaamay. marka juskani saddexdaa qiso oo isdhammaystiraya ayuu ka warramaya. qisada koobaad inay dadku dhulka mas-uul ka yihiin, nebiyullaahi aadam calayhi salaam lagu tijaabiyey. tijaabadaa nebiyullaahi aadam lagu tijaabiyey uu ku guuleystay qeybo badan oo ka mid ah. dadkii ka dambeeyey lagu tijaabiyey inay dhulka mas-uul ka noqdaan, dabeedna dhulka ay fasaadiyeen. dabadeedna lagu tijaabiyey nebiyullaahi ibraahim, dabeedna tijaabadii uu ka soo baxay. saddexdaa qiso ayuu juskaasi iskugu keen xidhaya oo inoo tilmaamaya micnaha hogaanka in dhulka mas-uul laga noqdo oo la qurxiya qiimaha ay leedahay. waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.